Marka laga hadlayo siyaasadda iyo militariga caalamka, waxaa jira xiriiryo qarsoon oo mararka qaar aan si fudud loo arkin. Mid ka mid ah xiriiryadaas waa kan u dhexeeya Iran iyo North Korea. North Korea condemned the US strike on Iran's nuclear facility as a brutal violation. North Korea is sending its highest level delegation to Iran in nearly 5 years. Labada dal waxay ku yeelaan labadoodaba qaaradda Asia, balse way kala fog yihiin. Midna wuxuu ku yeelaa bariga dhexe, halka kan kalena uu ku yeelo bariga Asia. Waxa u dhaxayso kilomitir ahaan 6,810 kilomitir oo 4,000 oo mayl u dhiganta. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo ku falanqeyn doona xiriirka qarsoon ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Iran iyo dalka dimuqraadiga ah ee North Korea. Fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe noo saar, haddii hore noola joogtin waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Waa anigoo ah Cabdixakiim Elonko. Laakiin inkastoo ay masaafada aad u weyn tahay, haddana muddo ka badan 40 sano waxa u dhexeeya xiriir militari iyo siyaasadeed oo mararka qaar qarsooni ahaa. Xiriirkaas ma ahan mid la mid ah xulafada waaweyn ee caalamka sida kuwa NATO, laakiin waa xiriir ku dhisan dano istiraatiiji ah oo labada dalba ka helaan faa'iido militari iyo siyaasadeed. Sheekada xiriirka waxay si dhab ah u bilaabatay 1980 xilli uu socday dagaalka u dhexeeya Iran iyo Iraq. Dagaalkaas oo socday ku dhawaad 8 sano ayaa ahaa midkii ugu adkaa ay Iran la gashay dalka Iraq. Waqtigaas Iran waxay u baahneyd hub iyo gantaalo si ay u difaacato dalkeeda. Dalal badan oo reer galbeed ah ma rabin inay siiyaan hub Iran sababo cunaqabateyn darteed. Halkaas ayay North Korea ka soo gashay. North Korea waxay Iran siisay gantaalo, qalab militari iyo tababar farsame. Taasi waxay noqotay bilowga iskaashiga militariga oo sii xoogaysanay sanadka ka dambeeya. Kadib 8 sano oo dagaal ah, markuu soo idlaaday dagaalka u dhexeeya Iran iyo Iraq, xiriirka u dhexeeya labada dal ma uusan istaagin. Dhab ahaantii wuxuu galay marxalad kale oo cusub oo ku saabsan horumarinta tiknoolajiyadda militariga. Khubaro badan oo arrimaha militariga ka faallooda ayaa sheegay in Iran ay horumarinayso gantaalada balastiga ah oo qaarkood ku salaysan naqshada asal ahaantii laga soo minguuriyay kuwa North Korea. Mid ka mid ah gantaalada sida badan lagu hadlo waa Shihab 3 oo la sheegay in xiriir tiknoolajiyeed uu la leeyahay gantaalka North Korea ee Nidong. Tani waxay muujinaysaa in labada dal ay wadaagaan cilmi baaris iyo khibrad ku saabsan horumarinta gantaalada masaafada dhaadheer. Sababta ay labada dal sidaas ugu wada shaqeeyaan waxay la xiriirtaa xaaladaha siyaasadeed ay ku sugan yihiin. Labada dal waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo ka yimid qaar ka mid ah quwadaha waaweyn ee caalamiga ah, gaar ahaan Mareykanka iyo xulafadiisa NATO. Cunaqabateyntaas ayaa ka dhigan inay adkaato in la helo tiknoolajiyadda militariga oo casri ah sida dalalka kale ee caalamiga ah. Sidaa darteed, Iran iyo North Korea waxay isku arkaan inay iscaawin karaan, mid walba wuxuu leeyahay wax uu kan kale u baahan yahay. North Korea ayaa leh khibrad dheer oo ku saabsan gantaalada iyo tiknoolajiyadda militariga ee culus, halka Iran ay leedahay warshado hub soo saara iyo awood dhaqaale oo ka ballaaran tan North Korea, sida shidaalka ceeriin iyo gaaska dabiiciga ah. Sanadihii ugu dambeeyay, xiriirka labada dal wuxuu sidoo kale yeeshay dhinac siyaasadeed. Marar badan hogaamiyaasha labada dal ayaa muujinaya taageerada midba midka kale marka ay timaado arrimaha caalamiga ah. North Korea condemned the US strike on Iran's nuclear facility as a brutal violation, but its true intentions appear complicated. Reporter Chu Jin-hee examines whether North Korea's nuclear facilities could become a target for Trump.
North Korea is sending its highest level delegation to Iran in nearly 5 years. The visit comes amid US's concerns that arms sales by Pyongyang and Tehran are helping fuel conflicts in West Asia and Ukraine. In a rare public report of the trip, the official Korean Central News Agency confirmed the delegation's visit. That, it said, is accompanied by External Economic Relations Minister Yoon Jong-ho. Arrintani waxay sii xoojisay xiriirka u dhaxeeyay dhinacyada Tehran iyo Pyongyang. Mid ka mid ah arrimaha ugu badan ay dunida ka walwalsan tahay ayaa ah su'aasha ku saabsan hubka nuclear-ka ah. North Korea hore waxay u samaysay tijaabooyin nuclear oo dhowr ah, taasoo ka dhigan dal leh awoodda nuclear-ka ah. Iran dhinaceedan haddii aan eegno waxay muddo dheer sheegaysay in barnaamijkeeda nuclear-ka uu yahay mid nabadeed, inkastoo ay jiraan dalal badan oo ka shakisan arrintani. Ilaa hadda ma jiraan cadeymo rasmi ah oo muujinaya in North Korea ay Iran siisay hub ama tiknoolajiyadda nuclear-ka si toos ah. Si kastaba ha ahaatee, khubaro badan ayaa sheegaya in iskaashiga militariga labada dal uu sii kordhayo, gaar ahaan dhinaca gantaalada iyo cilmi baarista militariga. Markii la eego dhammaan arrimahaas aan soo sheegnay, waxaa cad in xiriirka labada dal ee Iran iyo North Korea uusan ahayn mid fudud. Waa xiriir ku dhisan dano istiraatiiji ah, xaalado siyaasadeed oo isku dhow, iyo baahida labada dal ay u qabaan tiknoolajiyadda militariga. Inkastoo aysan jirin heshiis rasmi ah oo sheegaya in midkood uu si toos ah u difaaci doono kan kale hadduu dagaal dhaco, haddana iskaashiga ka dhexeeya wuxuu noqday mid muhiim u ah siyaasadda militariga ee labada dal. Ugu dambeyntii, su'aasha ugu weyn ee mustaqbalka taagan waa sida uu xiriirkan u sii socon doono. Ma sii xoogaysan doonaa mise wuxuu ku ekaan doonaa heerka uu hadda joogo? Jawaabta su'aashaasi waxay ku xirnaan doontaa sida ay u beddelmaan siyaasadda caalamka, cunaqabateynta, iyo xiisadaha u dhexeeya quwadaha waaweyn ee dunida. Muuqaalkeena maanta waa naga intaas. Haddii aad fadlan intaan soo gaartay, subscribe noo saar. Haddii aad hore nala joogtin, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Waa anigoo ah Abdixkiim Ilonko. Tan iyo muuqaalkeena xaga aan ku kulmi doono. في أمان الله وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.